Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii dhiirigelimaha ardada. Maanta waxaan halkan ku soo qaadanaynaa sida aad u noqon kartid ardayga ugu horeeya fasalka kaalinta koowaad. Walle taas waa ay fududahay, balse dadka qaar way adkeystaan. Ogow balse inaad wax badan akhrisid waxay kaa suurtagelin kartaa inaad ka gashid fasalkaaga kaalinta koowaad. Haddii aad tahay akhriye wanaagsan oo mar walba wax akhriya oo isku daya inuu raaxaysa dib u dhigto, maanta wallahi waxaan hubaa inuu ku guulgaari karo noloshiisa waxbarasho iyo mid shaqo mid oo anfacaysa isaga oo sumcad u yeelaysa. Balse waxaa lagaaga baahan yahay inaad akhriso waxyaabaha adiga aad jeceshahay. Midda ugu horeysa waa inaad time leedahay aad wax ku akhrisid. Timetable waa inaad lahaataa oo mar walba maada aad jeceshahay aad ku diyaarisid, aadna waqti aad ku baashashid raasatid. Isku day mar walba inaad wax akhriso, laakiin ha badinin inaad waqti walba wax akhrisid. Waayo maskaxdu waxay u baahan tahay nasiino aad ku nasatid. Marka ku dayo saaxiib wanaagsan wuxuu kuu horseedi karaa tillaabooyin guul ah oo aad ka gaartid noloshaada. Balse